Qodar Media subscribe gambaleel ka afro si aad u noqotid daawadaha ugu horeeya muuqaaladeena daawada. Ma santahay fursadan qaaliga ay siiseen Dalsan TV saakay markuu waaga bariyay sida caadadii ahayd ayaan waxaan soo aaday shaqo marka xafiiskan ku socday gurigeyga ka soo baxay anagoo shaqo ku socda ayay muxuu ahaa daljirka dahsoon askar fadhida ay anoo bajaaj saaran igu heshay markaas waxaan xirnaa indha shareer booliisku way istaajiyeen markaas joogeen daljirka dahsoon waxay yiraahdeen indha shareerka iska qaad indha shareerkii aan iska qaaday indha shareerkan iska qaaday ninkii wuxuu yiri soo degaaday waa u soo degay amarkiisu waa qaatay waa u soo degay marka u soo degay wuxuu yiri adiga waa laga shakiyay marka waxa waa intii istaag marka gabar oo wax isku nahay la socotay xiligaas oo ayadana xamrweyna rabtay markaas dan gabadhii yaaniga wala la soo dejiyay sidii ku soo degnay kadib ayuu wuxuu dhahay marka waa lagu kaxeenaaday saldhiga lagu geenaa taliyihii ayuu la hadlay booliiskii kii joogay askarigii joogay meeshan dan taliyihii wuxuu ku yiri waxaan haynaa nin soo xirtay xijaab iyo indha shareer waa gartay markaas taliyihii wuxuu yiri askari soo raaciya meesha kula joogo mid kamid ah soo raacaan bajaaj la soo saaro halkeen saldhiga Boondere sidii marka waxaan isku raacnay aniga iyo booliiskii mid hal askari indha shareer waa iska qaaday gacanta ku haysta markaas iyo waxaan is raacnay iyo aniga iyo gabadhii oo muxuu ahay wax isku ahaan meeshii waxaan tagnay markaas saldhigii la geeyay saldhigii markii la geeyay waxaan sugayeen ba askartii oo la sii inform gareeyay loo sii sheegay warkii inaan soo socono dan marka askartii iyo taliyihii joogeen oo saldhiga Boondere dan saldhiga Boondere taliyihii wuxuu weydiiyay assalaamu calaykum yiri magaca waa ugu jawaabay calaykum salaam dhahay waxa la dhahay Faiza wuxuu yiri okay gabadhan marka taliyihii wuxuu yiri nin waayba taliyihii markii lagu geeyo asalaanteen isagana wuxuu ku raacay soo qabtay inaad nin tahay nin inaahay markaas maxay dilishanayaan astaan arkeen saan u xijaabanta markaas saan u xijaabanahay saan had u libsanaay oo kale markaas waxay ugu markaas gabar igu wareejiyeen ayaga waxay dilishanayaan malaha ma aqaan astaanta oo astaama kale ay sawiranayaan markaas gabar joogtay meesha oo sheekada maqashay intii oo askari ah ayaa markaas la ii diibay oo la dhahay soo bar gabadhan gudaha gali soo bar gabadhii markii aan raacay hanjabaad ay igu bilaawday ma taqaano meesha ka socdo ma taqaano xiligaas ay igu horeysay oo dhacdadaas la igu soo qabtay shantii gabdhood ayay kacisay gabadhii baaritaanka aan leeyahay diray oo qolka ay gelisay shantii gabdhood ka ceen waxa la banaanka u baxa shantii gabdhood waxay yiraahdeen anaga ma baxeeno maxaa waa qofkana noo soo gelisay markaas waxa la nin waaye waa la baara waa laga shakiyay waa la baara markaas gabdhihii intee wada kaceen shalmadihii isku aadiyeen ayay waxay yiraahdeen nin bismillaahir rahmaanir rahiim gabadhii markay waxay tiri dharka siib waxaan ku yiri dharka siib maayo adiga waxa lagu talagalay inaad ibaartid baaritaankan caadi guud waa sameyn kartaa ibaar wixii kale oo ka baxsan awoodaad ahaan waa inaad gudbisaad tan markaas ayaga halka gaaraan gabadhii way ibaartay timihii markay ay taabatay waxay tiri timida dheer ay leedahay gabadha markaas waxay yiraahdeen hadda ka hor nin la soo qabanayay timida dheer buu lahaa adiga waxba ku dalina markay baareen markaas cilaana ii marsan faraha markaas waxay midaa soo booday waxay tiri oo ahaan tii baaris la ii diray waxay tiri ninka wuxuu marsan yahay cilaan ayuu marsan yahay gabadhii waxay tiri aniga intaan ka badan wax kuma arkooyi maxay nala tahay kuwii kale la tashanay marka kuwii kale waxay yiraahdeen wallahi hadda tan sii daysid qaraxda adaa lagu haystaa shaqadaadana waa qiilqiila galay ayaas warsanayaan gabdhihii kalena loogu talagalay ku jirtaa qolkii baarista kuma jiro dan midaa waxay soo booday waxay tiri hal sano oo waxay haystaa ciidan tababar haystaa gabadhan in la sii daayo ma waxaan ku yiri adiga hadda ay aragtay aflagaadada waa laga fiican yahay adigana ma aha qofka ibaarayo soo marka waxay ku fiican dhahay nidaamka ina aliyaalisid oo aamustid waxay tiri tan way indhacadahay niyo gudbi taliyihii banaanku taagan yahay marka albaabka banaankiisu taagan yahay wuxuu leeyahay wariyaa wax ma heshay maxaad ku aragtay warbixin sugaya markaas taliyi wali waan gacanta ku hayaa oo waan baaraya kadib taliyihii wuxuu yiri nin qofkaana la keeno waa nin diaspora askartii wartkooda socda marka waa nin diaspora gabadhii waxay tiri aniga wax kale kuma arag taliya adaa ku dhiib sheekadan wali waa question mark saaran taliyihii marka OB-ga ii geeyay markii dambe oo taliyihii bas aniga taliyihii isku noqonay taliyihii wuxuu yiri adeer
marka gabadhii ila socoto banaanka joogtana gooniya loo wareysanayo waa loo tegey gabadhii markii dambe as wareysan doonaa soo baxo aan gabadhii is wareysan doonaa qolo kala wareysanayso askartii banaanka joogtay aniga iga wareysanayso dan gabadhii waxaa lagu yiri gabadha mataqaanaa markaas tiri haa waa aqaanaa guriga la deganahay ehel iyo qaraabaan nahay gabar waaye maxaa niga qaldanay ku tiri ayigi askartii jawaab u celisay markaas waxay ku yiraahdeen ninaan qabay ku tiri gabadhan maxaan waxyaabahan kale waa laga fiican yahay waa u jeedin inay gabar tahay waana la qabaa markaas waxay ku yiraahdeen adiga ma u qabay adiga say ku aragtay adiga ma u qabay waxay tiri waa aflagaadad waa laga fiican yahay qofkaana kuwa ku qaldamosi inaa ka fiirsatina fiican kadib taliyuhu wuxuu weydiiyey meeshaan ka shaqeeyo waa u sheegay meeshaan ka shaqeeyo iyo meeshaan deganahay wuxuu yiri intee degantahay xaafad waxa uu sheegay inaa degmada Boondheer aan ka tirsanahay qayb ka deganahay markaas wuxuu yiri oo anaga aageenaba degantahay saasay tahayna markaas ku yiri ha dood dheer ka bacdi oday oo muxuu ahaa saldhiga ka shaqeeyo askari ah ayaa soo galay oo sheekadii banaanka ku soo maqlay dadna wuu ifiirinayo wuxuu yiri gabadhan gabar waaye ninba mu ekaman isku dhow maxay tahay wax qaldan gabadhan ku haystiin gabadhan waa u gafteen gabadhan waa ina raali gelin ka bixisaan asiideysaan markaas waxa ku yiri waa mahadsantahay ku yiri ninka askariga ahaa odayga dadna taliye wuxuu yiri askarigi in loo abaalmariyo waaye abaalmarin la siiyo because wiligiis wax ma soo qabanin maanta uu qof soo qabto darajo mudan yahay dadna soo qabtay darajo mudan yahay dadna waxaan ku yiri askariga waxa darajo la siiyaa markii qofkii si sax u soo qabtay laakiin qof daf loo geystay hadaba askari aad muxuu ahaa mannaan siinaysid abaalmarin ugu daraysid markaas shacabkii hal dhibaatay aha dadna wuxuu yiri adigu aad adag tahay xagan fariiso waan ku xirayaa waxaan dhahaa xirtin adaa taliye ah maanta awoodii wadanka haystid way xiri kartaa xir dadna markaas odaygii wuxuu yiri gabadhan iska sidaayay gafa u geysteen hadana muran iyo muxuu ahaa iyo awood sheeg ah ugu darinay sidii